الحمد لله ثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا ليال إلهي بان mahadle تبارك وتعالى inoo saamaxay inaan isku soo noqono mar labaad anigoo ka hadli doona mawduucan aada u dheereyn oo ku saabsan siyaasiga hogaamiyaha ah ee ummadda wax u tarayay waa ninkee ayaan ka hadli doonaa maanta insha allahu tacaala. inta aanan mawduuca si fiican u gudagelin waxaan jecelahay inaan halkan shukri cabdiraxmaan jaamac cadhoole oo gabadh wanaagsan ah oo reer jabuuti ah oo geeri ay ku imatay inaan dhammaan ehelkeygii iyo dadkeygii iyo qaraabadeedii iyo ummadda reer jabuuti oo gabadhaas aada u jeclayd inaan halkan ka tacsiyadeeyo insha allahu tacaala. waxaan kale oon tacsiya u dirayaa geeridii ku imatay geesigii isaguna ina xaaji ismaaciil, ilaahay ha u naxariisto tabaaraka wa tacaala. iyadana isagana waxaan ku leehay isaga iyo ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo dhammaan wixii uu ka tagay iyo wixii kasii tafiirmay iyadana sidaas oo kale dhammaantood waxaan ku leehay ilaahay sabir imaha naga siiyo, ilaahayna ha u naxariisto, dembigoogana ha dhaafo, jannat alfirdows ilaclaana ilaahay ha geeyo tabaaraka wa tacaala. intaas kadib walaalayaal, mawduuca aan maanta ka hadlayno waa mawduuc adag oo muhiim ah oo ku saabsan dhinaca fikirka iyo aqoonta siyaasadda. waxaan isweydiinaynaa waa kee siyaasiga dal hogaamin karaa, waa kee siyaasiga dal badbaadin karaa, waa kee siyaasiga dal anba bixin karaa. marka aan ka hadlayno qofka siyaasiga ah waxaan ka hadlayno maaha qofka siyaasadda ka shaqaysta, wasiir ka ah amba maamulo xafiis ka ah amba xogayo guud ka ah amba ku abtirsada xisbi siyaasadeed kaa anuu kama hadlayo. waxaan ka hadlayaa qofka siyaasadda u arka inay tahay badbaado oo uu ku badbaadinayo qaran iyo ummad. kaasi waa kii marka ay baadheen culimmada waaweyn ee siyaasadda baadha ee ka daba gurta muxuu yahay ninkaasi, kaas baan isweydiinaynaa. marka inta aanan gelin horta siyaasi muxuu yahay, ninka siyaasiga ah muxuu yahay waa kow. labo, ninka hogaamiyaha siyaasadeed muxuu yahay waa mid labaad. midda saddexaadi waxa weeye ninka siyaasiga ah inta aanan sheegin labadaaba siyaasadi maxay tahay. dad fara badan bay ku laaqan tahay arrintaas. arrintan maxaa igu wacan, waxaan fiiriyey 4 arrimood oo geeska africa ka socda. arrinta koowaadi waxa weeye shirkan dhuusamareeb ka socda oo ay ku kulmeen madaxdii gobolada amba dowlad hoosaadka amba dowladaha federalismiga ka midka soomaalida. madaxdaas oo ka haasaawayey arrin culus oo ah doorashada ma dib baa loo dhigi mise waa lasoo horeysiini. arrimo kaleetoo fara badanna ka sheekeysanayay. kadibna khilaafka kusoo dhex biiray ee la sheegay madaxweyne farmaajo iyo xasan khayre. muxuu yahay khilaafkaasi, ma wax jiraa? hadduu jirana muxuu macno sheegayaa? marka arrintaas waa ii keentay. arrinta labaad, ninka la dhahdo aabi axmed mashaakilkii etoobiya dhex yaalay uu iloobay oo wuxuu tagay isaga iyo masar buu dagaal ka socdaa. arrintaa maxay ka dhigan tahay? dagaalka isaga iyo masar dhex maraya oo dadkii ilowsiinaya problemka daakhiliga ah muxuu yahay? aabi axmed markaa ma siyaasi baa dal badbaadinaya mise waa pragmati filan ciyaaraya? arrinta saddexaadi waxa weeye ninka la idhaahdo assisi oo dalka masar xakuma wuu ilaaway in noloshiisii halis ay ku jirto oo sadu nahda meesha loo bixiyey oo ah maaragtay biyo xidheenka weyn ee loo bixiyey horumarka ee laga dhisay dalka Ethiopia
inuu masar iyo suudaanba gaajo iyo haraad ku dili doono. waa ilaawey. marka wuxuu dagaal ku qaadayaa libiya isagoo oo daandaansanaya erdogan. kaasi markaa ma siyaasi naajixa. ismaaciil cumar geele oo ah madaxweynaha soomaaliya, jabuuti baan ujeedaa, oo xukuma anaka reer jabuuti haddaan nahay, isaguna uu ilaaway inuu yahay madaxweyne qaran oo shalay toola lahaa anigu qabiilka khad axmaraan u jaaxay, khad cas baan jaaxay. ninkii yidhi wuu iskaga tagay arrintiio wuxuu ka shaqeeyaa in uu diro nin cabdilaahi cabdile dhahdo ciidamada xakuma oo magaalada ku dhex qayminaya 2,000 oo faran oo ururinaya ciyaal yaryar. ciyaalkaa yaryar oo laga leeyahay dariiqa usoo baxo ooyo oo dhaha ha naga tegin ismaaciilo, haddaad naga tagtid waa dhimanayna dhaha. marka 2,000 oo faran ninkii ilaalin lahaa qaranka. ina ismaaciil cumar geele oo magaalada la dhex meereysanaya kartoon iyo burcakibir iyo xumuli iyo lacag yar oo doonaya inuu isku diro dadka xaafada gala iyo sheekh cabdiraxmaan barkhad, sheekha weyn ee reer jabuutiya. marka ismaaciil cumar siyaasadii uu ka tagay wuxuu u tagay wax la dhahdo inuu noqdo oday reereed. wuxuu kale u tagay in uu ka shaqeeyo wax la dhahdo odayaal inuu u diro ninkii maaragtay xidhnaa libaaxa ahaa fuaadna lasoo sii daayo. odayaashu ay kasoo saaraan xabsiga, maha maxkamad iyo maahin waxa xabsiga kasoo saaraan. lakin waxa yaab leh, odayaasha fuaad wuxuu ku yiri, odayaashii u tagay wayna garanayaan, aniga hagga bay nagu soo gaadhay, wuxuu ku dhahay koofiyad bacdlayaal baa tihiin ku shaqaysanaya magacayge, qof aan aniga ahay lacag ku doodoonta, meeshana ka baxa, anu qaran baan ahay buu ku yidhi. waa dagaal adag weeyaan. okay, marka waxa aan ka hadlayno waxa weeyaan siyaasaddu waxa ay tahay nolosha oo la maamulo weeyaan. culimmada siyaasadda dabagala waxay dhahdeen ma hiya siyaasa? waxay dhahdeen hiya tadbiiru lumuur alxayaatiya, nolosha oo la maamulo oo la kala wado oo inayna isku dhicin loo diido, taas baa la dhahdaa bay dhahdeen siyaasad. haddaba siyaasigu muxuu yahay? siyaasi waxaa la dhahdaa qofka karti u yeeshaa inuu nolosha kala habeeyo isagoo oo xikmad isticmaalaya, sages. nolosha inay isdiido, inay isku dhacdo, inay dadku isku dhacaan, objectivekiisa inuu gaadho, objectiveka ummadda inuu gaadhsiiyo. nin lucbadda siyaasiga ku dhex jira oo kala wada fanu idaarat alxayaat waa aar. markaa siyasadu markaas aarku waa maxay? waa fan. ninka siyaasigii waa fanaan. dhinacaasi waa dhinaca labaad waxaa la dhahdaa fanu idaarati lmumkin, wixii suurto galaya iyuu wadaa ninka siyaasigii. maanta waxa aan suurto gelin beri buu ka dhigi, waxaa beri suurto galaya maanta ma soo qadimayo. wuxuu og yahay waxa loo yaqaano priorityga, xuriyadda iyo dadnimadu inay ka horeyso wax walbaba. sidee baa dadka xuriyad loo siiyaa? iyaa ka horeysa. sidee baa loo xoroobaa? waxaan buu aada u yaqaanaa ninka siyaasigii. marka siyaasigu wuxuu yaqaanaa wadista nolosha, waa fanaan. siyaasigu wuxuu yaqaanaa xoog. siyaasaddu waa xoog, waan sheegi doonaa. higher power iyo soft power bay u kala baxdaa. labadan nooc kolbata u baahan yahay buu isticmaalaa. ninka siyaasigii wuxuu yaqaanaa maanta teebaa loo baahan yahay marxaladan oo inaad isticmaashida. markaa siyaasigu waa kaa weye. arrinta ugu dambeysa, ninka siyaasigu wuxuu yaqaanaa marka uu istaagayo iyo markuu u banaynayo. dhagax kugu soo socda markaad gaashaan ka dhiganaysid iyo marka aad ogaanaysid inaad u banaysid dhagaxa oo kuweydaarta dhagaxo unan kugu dhicin. wuxuu yaqaanaa markaa siyaasigu taxadiyaadka hor yaala ee hor yuurara sida loola dhaqmo. markaa siyaasi markaan soo ururino, lama yidhaahda siyaasiga ah ninka xafiis fadhiya amba wasiir ah. siyaasi lama yidhaahdo ninka xisbi ku jira, barty ku jira. siyaasi lama yidhaahdo ninka rag caaya. siyaasi lama yidhaahdo gabadha gabdhaha cayda. siyaasi lama yidhaahdo qofka aanan waxaas oo dhan ayna shaqadiisa ku jirin. markaa siyaasigu waa kaa weyaan. okay, waxaan ka baxaynaa qofkii siyaasiga ahaa. raggan maarata dhuusa mareeb fadhiya, madaxweynuhu imika u yimid ee sheekaysanaya,
madaxweynaha masar ee doonaya inuu somaliland ka samaysto saldhigya ka samaysto si uu etoobiya u daadaansado oon xarbul wakaala ay soomaalidu galaan, shiinahan iyo maraykankan jabuuti lasoo dejiye laga yaabo inay hub isku qaataan mar dhow, sida ismaaciil cumar uu sameeyey. waxaan maaha siyaasad. siyaasaddu waxa weeyaan waxyaaladan in la kala wado weeyaan, maaha in siyaasadda la isku keena meel beedadaadii oo ku dhex qaraxdo. waxaa siyaasad maaha. su-aashu markaas waxa weeye, haddaan fahanay siyaasigu waayo, waxaanu imananaa hogaanka siyaasadeedina waayo. eeg, siyaasigu kullu siyaasiyin laysa qaa'idan. nin wal oo siyaasi hogaamiye maaha. iminka Kissinger oo kale waa siyaasi weyn laakiin hogaamiye maaha. waa khabiir dhinaca siyaasadda laakiin hogaamiye maaha. matalan aniga fikradayda Daud Oglo ninka la dhahdo ee dalka u dhashay Turkiga, waa khabiir siyaasadeed, waa caqli siyaasadeed, waa maan siyaasadeed, laakiin hogaamiye siyaasadeed maaha. examplekaasi soomaalidana dad badan baa sidaas isma yaqaanaan, oon oran karnaa waa aqoon-yahano siyaasadeed laakiin ma aha siyaasiyiin. jabuuti sidaas oo kaleeto waxaa jira khubaro iyo aqoon siyaasadeed laakiin hogaamiyaal siyaasadeed maaha. arrintaasi waa mid weeye. marka maxaan kaa idhi, kullu siyaasiyin laysa qaa'idan. qof kasti oo siyaasiyi hogaamiya maaha, laakiin kullu qaa'idin siyaasiyin siyaasiy. nin kasti kullu qaa'idin siyaasiy. nin kasti oo leadership ah oo hogaamiye siyaasadeed ah waa siyaasi weeyaan. lianno si uu u hogaamiyo ummadda siyaasadda waa inuu yaqaano siyaasadda. marka leadershipku wuxuu leeyahay waxyaalo lagu yaqaano. marka maanta waxaan jecelahay problemyadan geeska Afrika ka jiray aadka u culus, Djibouti ka jira, Soomaaliya ka jira, Somaliland ka jira, Ethiopia ka jira, meel wal oo aan fadhino ka jira, waxaan doonaynaa inaan analysis ku samayno. eeg, dadku inay isku daalinin hebel waa qaa'id iyo hebel maaha qaa'id, hebel waa siyaasi iyo ma hebel siyaasi ma, waxba isku daalinaa. waxaan wadnaa wax weeyaan shakhsiga iska daayo, aqoon baan sheegaynaa. waxaan u imananaa markaa hogaanka siyaasadeedii wa-aya kaasina wa-ayo qofka hogaamiyaha siyaasadeeda. qofka hogaamiyaha siyaasadeeda waa qofkan aan inii sheegi doono. kow horta waa inuu leeyahay wax loo yaqaano fikrad markazi ah, fikrad centraala waa inuu leeyahay, central pense waa inuu leeyahay. waa inuu ummadda wuxuu ugu yeedhayo uu dadka u sheegayo isagana u caddahay, dadkana u caddayn karo, sharxi karana, ummaddana uu ku hogaamin karo. qof aan lahayn fikrad markaziya oo uu ku nool yahay maaha hogaamiye. ninka la dhahda Mahathir ee dalkaas u dhashay Malaysia, intuuna noqon hogaamiye siyaasadeed, fikrad markazi uu sameeyey. wuxuu ahaa Malaysia waa inay horumar gaadho, waa number 1. number 2 wuxuu sameeyey shacbiga muslimka ee malayga ah waa inuu hogaanka qabto bilaa hadal. waa hogaankana u hayaaye, laakiin hogaankii runta ahaa ma hayo. powerkii oo dhan gacanta shayna ugu jirtaa iyo hindi. waa inaa shacbigan oo 60% 65 lasoo kiciyo, lasoo gaadhsiiyo mustawo. fikradaasi markaziga waxaa ugu dheeraa in Malaysia lagu dhaqaajiyo dadka ruuxda islaamka. islaamnimada dadku aaminsan yihiin waa inay islaamnimo horumar ku gaadhaan. fikradda markaziga ee Malaysia samaysay waxay haytaa, waxaa loo yaqaanaa centre pensée waa taabaxay. turkiga Erdogan si turkiga u dhaqaajiyo wuxuu sameeyey fikrad laada markazi. cusmaaniyadii waa inay soo noqoto, xoogii dowladda cusmaaniyadda islaamka waa inuu soo laabmo. dadka taaba kicisay markazi taaba dadka ugu yeedhaa kama qariyo. aba ayaa suufiyo furaya, maxamed al-Fatih buu ka sheekeynayaa, wuxuu ka sheekeynayaa Suleymaan al-Qanuuni, wuxuu ka sheekeynayaa Cabdilxamiid al-Thani, wuxuu ka sheekeynayaa Cusmaan, wuxuu ka sheekeynayaa Ertugrul. wuxuu dadka barayaa inay dadku leeyihiin fikrad markaziya oo horumar ay ku gaari karaan. siyaasiga Soomaaliga ah reer Djibouti iyo geeska Afrika fadhiya muxuu yahay fikirkiisa markaziga ah? dadka uma sheegaan. qaar baa liberaal ah, waa liberaaliyiin, aragtida Maraykanka iyo reer galbeedka ay qabaan, laakiin shib ma sheegaan. waxay dhahdeen ummadda Soomaaliyeed ha midowdo, ha kacdo. fikradaada markaziga ah ee ummadda Soomaaliyeed ku hogaaminaysid, fikradaada markaziga ah
ummadda reer jabuuti aad ku hogaaminaysid fikradaada markaziga ah doctor abi axmed eed ummadda etoobiya ku hogaaminaysid maxay tahay ma hiya fikratuka almarkaziya ma arkaysid isaga iyo qofka kaleeto waa isku mid un bas waxay dadka uga duwan yahay kursigu dul fadhiyaa waa siyaasi uu sheekaynaya horumar baan gaarina uu ka hadlaya dekadahan dhisaynaa ciidamaan keenaynaa booliis baan abuuraynaa maxaad ku abuuraysaa booliiska qofku hadduuna lahayn fikrad markaziya maxaa bedela fikradda markaziga qabyaaladdaa bedesha waxaa bedesha cirqiga itnigaa bedela waxaa bedela hubiyadda itniga dadku waxay noqdaan cirqi qoloqolo iyo qoomyaad lianna wax weyn ay doonayaan ma jiro chinaha ma uu situun muxuu sameeyey fikrad markaziyuu sameeyey si ay horumar u gaadhaan wuxuu isku keenay shuuciyaddii markisyadii iyo confuciusyadii labadiibuu isku dhisay wuxuu ka soo saaray caqiidada shiinaha maanta dunida ay ku qabsanayaan maraykanka george washington muxuu sameeyey waxaa la sameeyey kristianismigii liberalismigii iyo greganismigii greegi iyaa la isku dhex milay markaa baa laga soo saaray amriika alcudma maraykanka weyn sidaabaa marka fikrad saantara dadka loo sameeya oo ummaduhu carabtu maxay horumar u gaari leedahay fikrad saantara male mar waa qowmiyiin mar waa islaamiyiin mar waa liberaaliyiin mar waa markisiyiin mar waa waxba mar waa qabaa'il mar waa odayo mar waa boqoro mar way taahayaan tii 70-80 sana ummaddu markaa ninka siyaasigii dadka wuxuu u sameeyaa fikrad markaziya maxaad doonaysaa maadaa turiid nin hogaamiye aad tahay maha maxaad rabtaa ma kursi baa rabtaa mise dal badbaadadiisaa rabtaa sideed u rabtaa iminka ismaaciil cumar geele 20 sano dul fadhiyaa kursiga waxba ma qaban daarana u dhisay meelana u taagtaagay laakiin ummadda himadeedii kulama qaadeen ma abuurin xataa waxa loo yaqaano jibuutiyaanite jibuutiyaannimo ma abuurin fikrad markaziya dadku male dadku way kala shiraan way kala fikraan way ishaystaan way isku cadhaysan yihiin dadku maaragtay way iscaayayaan man iladii sanaciyaa sameeyey waxan iyaa dowladdii ka baabi'iyey waxay ahayd nashinkii oo ka dhigay qabiil waa isaga iyo wixii la shaqaynayay marka alfikra almarkaziya waa muhiim ninka hogaamiyihii wuxuu leeyahay fikrad centralistia labo ninka hogaamiyihii wuxuu leeyahay waxa loo yaqaano alfikra almuxafiza waa inuu haysta fikrad dadka uu ku dhaqaajin karo ma aha inaad tahay uun fikrad haysatid dadka maxaa dhaqaajin karaa taasi waxay u baahan tahay ninka jaasim sultaan la dhahdo ee reer qatar ah oo mufakir weyn oo siyaasi ah waa khabiir siyaasadeed wuxuu sheegaa inay ummaddu marka loo tabeynayo fikradda muxafiska ummad maxaa dhaqaajiya waxaa laga soo qaadaa fikradda asalkeega fikradda markaskeed haysatid maxay tahay fikradda iminka matalan turkigu wuxuu qaatay dowlad cusmaaniya islaamnimadii cusmaaniyad in la soo cesho waa fikradda weyn ee ummadda lagu dhaqaajiyo maxaa muxafiz ah waxaa muxafiz noqday waa inay turkiya hogaamiso bariga dhexe waa kow labo waxaa muxafiz noqday waa inay turkiya ka baxdo min aljisri ila alqiyaada markii hore waxay ahayd turkigu waxay ahayd maaragtay kaabad ama bomb ahayd isku xidha maxay isku xidhaysay bridgekaasi caalamulislaami iyo wuxuu isku xidhayay yurub taa waan joojinay annakaa wax hogaaminayna arrinta saddexaad maxay ahayd waa in aan dhaqaalaha dadka turkida 5 sano ilaa 10 sano ay noqdaan ummad raaxaysato oo lacag badan haysata muxafiz bay noqotay dadkiiba dhaqaajisay saddex fikradood marka dadkii way isbedileen dadkii turkiga isbedel baa ku dhacay walidaalika islaan qaawan oo ka soo horjeeda Erdogan siyaasiyan iyo dhaqaal ahaan kula jirta laana nolosheedu wax ka qabtay inan yar oo wada tuman oo xilqad sita ambaba ahba dadka oo naqaan muslimiinta isguurshada iyo la jira muxuu ula jiraa dad baa ku caaya muxuu ula jiraa noloshiisiibu wax ka qabtay inta aanad mashaariic hawaawi aad sameyn dadka noloshooda wax laga qabtaa marka xukun aad gacanta ku dhigtid fikrin muxafiz marka markaan nahay geeska Afrika afkaarteena muxafiskii maxay tahay Soomaaliya matalan min maalintii carti laga yimid ilaa imika afkaar muxafiza lama soo bandhigin oo dadka dhaqaajin kara oo dadka riixi kara lama soo bandhigin maxamed siyaad barre uu sameeyey markii 69kii markuu dhulka qabsaday ilaa 77 afkaar baa socotay dadka dhaqaajinaysa Soomaali samee kacaan samee alaab samee khalad ahaataa masaxaato laakiin dadku way xiimayeen muxafiz baa jiray maanta afkaar muxafiza ma taalo
somaliland afkaar muxafisa ma taala bal wixii waaweynaa baa laga soo dhacaya jabuuti afkaar muxafisa oo dadka kicinaysa oo dadka dhaqaajinaysa ma taalo etoobiya waa la kala socdaa ee geeskeena africa hogaamiyaasha siyaasaddu ma hayaan labadii fikradood midna tii dadka saantar u ahayd ummaddu ay waa oranaysay farxaysay iyo tii dadka dhaqaajinaysay riixaysay labadii midna lama hayo okay marka ninka siyaasiga arrinta labaad u baahaya waa taa weeyaan eeg siyaasi haddaa tahay waa inay dadku iska ka dhex arkaan markaa siyaasi tahay dad kala duwani waa inay iska ka dhex arkaan waa in wuxuu hebel sheegayo wallahi waa sax weeyaan waxaaban doonaynaa ninka siyaasiga ah dadkiisa la reerka ah iyo kuwa aan reerkiisa aan ahayn waa inay siyaasadiisa jeclaadaan ninka siyaasiga ah waa inay dad kala duwan oo dhinaca cultureka ah ila matalan jabuuti oo kale dadku waa francophone arabophone anglo-saxon baa dhika soo biiray turki baa soo biiray china soo biiray dadkan kale cultureka ah waa inay si ka wada dhex arkaan arrinta labaad dadkan kale etniga ah canfar soomaali carab suudani waa inay iska kaa dhex arkaan dadkan kale qabiilka ah waa inay iska kaa dhex saksigu naagaha iyo dumarka iyo raggu waa inay iska kaa dhex arkaan acmaartu cumriyadu waa inay iska kaa dhex arkaan marka qofka hogaamiyihii waxa weeyaan man dadku ay mashruuciisa ku dhex milmaan arrinta labaad waa taa ila socda xabad xabad ila socda waxaan rabnaa inaan si cilmiya u doodno ya akhi waxaan ka fajacay anigu doodaha ka socdaa maaragtay internetka iyo bulshadu meesha ku hasaabayso waan hooseynaa waxaan ka sheekaynaynaa waa qarnigii 21aad waa 2020 waxa weeyaan waa maa bacda alxadaasa waa post modernizationkii waxa aan ka sheekaynayno wax aan soconayn oday budituu qaato xabsi taga oo ina yar kasoo sii daaya maxkamadiina halkan ay fadhido looyarkiina halkan fadhiyo odayaal intay meel fadhiistaan meel dowladi ka jirin waxba ka jirin yidhaahda anaku waxaan waa diidanahay waxaan doonana eeg waxaan u soconnaa dhinaca hoosta waa sidii qur-aanku sheegay afaman yamshi mukiban calaa wajhihi ahdaa am man yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim dad wejiga ku socda oo weliba lugihiina kor u taagay dhulka eegaya baa hanuunsan mise nin labada lugood ku socda oo dariiq toosan socda oo objectivekiisa ku socda yaa hanuunsan buu qur-aanku yidhi marka taasina waa midda labadaa shay waan sheegay waa inaad haysatid fikri markaziya afkaar santkhaala waa inaad leedahay maxaa tahay dadka ha ka xishoonin ma goosh baa tahay ma durwaa baa tahay ma milye baa tahay ma waxaa tahay laik baa tahay ma islaami baa tahay ma qowmi baa tahay nationalist baa tahay afkaartaada waaweyn maxay tahay ma intaayoo laysku dhex dardaray dad baa imika samaysa talfiiq ma intaasoo laysku malaanjeeyey baa tahay oo laysku laaqay oo cocktaila tahay man anta xataa acrif siyaasataka xataa astadiic an attabicaka waa inaan ku garto adu yaa tahay si aan ku raaci karo okay ha iska qarinin kuushka iska qaad kuushash baa siyaasiyiinta saaran waa inay ummadooda istusaan ay dhahdeen annaku sidaasaan nahay waxaasaan rabnaa soomaali halkaasaan geeninaa reer jabuuti halkaabaan geeninaa etoobiya halkaasaan geeninaa geeska africa maanta problem waxaa ku jira alxarbu bilwakaala eritrea galaysa soomaaliya meelo kamid a geli doona oo masar ba adeegsan doonta maxaan ku dhahdaa etoobiya wax kale wadan doonta waxaa nagu soo socda kolba mashruuc baan galnaa markii hore waxaan ku jirnay tii turkiga iyo maaragtay qatar iyo imaaraadka iminkana waxaan galanaa tii masar iyo maaragtay waxaan galanaa etoobiya haddana waxaan noo socdo garan mayno markaas geeskan africa ma meel sida jiirasha wax lagu tijaabiyaa aaway siyaasiyiintii bislayd okay arrintaas waa muhiim arrintaasi waa muhiim jiddan arrinta saddexaad ee loo baahan yahay ninka siyaasiga ee hogaamiyaha kama hadlayo anigu siyaasiga baqbaqlaha kama hadlayo waxaan ka hadlaya qofka hogaamiyaha ee siyaasigii wuxuu leeyahay mashruuc waa proje buu leeyahay fikraddii centraalkii baan ka imanay fikraddii dadka lagu riixayaan ka imanay arrin saddexaad buu leeyahay waa proje buu leeyahay mashruuc buu qoraa mashruuca madaxiisu ku qoraa uu ka soo dhaadhiciyaa madaxiisa waraaqad buu ku qoraa kitaab buu isku bedelaa kadibna dad buu ku tababaraa kadibna dadkaas baa faafiya ya nin masri albanna la oran jiray wuxuu oran jiray dadka ururadu waxay maraan 3 marxaladood waxay maraan marxalatu tacriif waxay maraan marxalatu takwiin waxay maraan marxalatu tanfiid adduunka dhan waa sidaa qofku marka hore waa inuu fikradihiisa dadka baro waa sheegi doonaa
labo waa inuu dad ku tababaro fikradihiisa oo fikradahan dadku ay qaataan tababar amba ha ku tababaro dhinacani warbaahinta amba iskoolaha u furo marka dambeetee saddexaadna waa inuu hirgeliyo wixii waa inay tanfiid ay noqoto ninka siyaasigii waa sidaa waxaa laga soo shaqeeyey turkiya iminkaan arkayno 50 sano laga soo shaqeynayay arbekan baa ka soo shaqeeyey erdogan baa ka dhaxlay mahatir iyo anwar ibrahim baa bilaabay iminkana waa idinka arkay halkay socoto maxaan ku idhahdaa wadanada dhaqaaqa aanu ka sheekeynaya ee muslimka amba afrikaanka waxaa maaragtay rwanda mashruucii wuxuu isku bedelay fikrad buu ahaa hirgelin buu isku bedelay rwanda waa wadan maanta model waa dictator aan oran karo uu ka caqli badan yahay kuwa annaka nahaysta ismaaciil cumar geelo kaliyo uu ka caqli badan yahay marka arintaas saddexaad maxaa dhihi waa inuu jiro projet amba project mashruuc waxa dhado mashruucaasi waa inuu ahaado mashruuc afar arrimood waaweyn sita kow mashruuc siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid bulsho oo tacliintii iyo tarbiyadii iyo wixii oo dhan ay ku jiraan iyo mid mustaqbali ah oo ah tallaabooyinka la qaadi doono mashruuca waa inay ku dhex jiraan min imika ilaa iyo meesha la gaadhayo matalan mahatir ninka dhahdo shacbiga malaysia wuxuu ku yiri 20 goor muu yiri 80 maanta waa la joogaa 20 waa la xisaabinaya maxaa la sameynaya waa la qiimeynaya 20 kii halkeen socodna waa la qiimeynaya annaka waxaan loo jeeday Djibouti 35 baa la sameeyay waa tii Sacuudigu sameeyay baa la soo qaado waxana waa la dhigoon waa maarta istinsaax bada waa kolon macna male waxaasi waa kubi waxaa la rabaa in mashruucu uu yahay mashruuc cad oo ku cad iyo ka sameeyay iyo kuwa loo sameeyay iyo idaacad iyo television mashruuc la hadal hayo Malaysia maxay sameysay waa example waxa siinay dadka geeska Afrika degan Malaysia tastatiicu badi Malaysia way awoodaa way kartaa Malaysia taqdir Malaysia way sameyn kartaa waxaa lagu qoray meel wal oo wadanka yaala waxaa lagu tababaray ardayda dhigata iskoolada hoose kuwa ka sii hooseeya xadaanaadka iskoolada ciyaalka la geeyo farjinka lagu geeyo ilaa iyo jaamicadda ilaa masterka Malaysia way awoodaa waxaa la dejiyay istaraatiijiyadii wuxuu yiri qibladii salaaduna waa Makka qibladii horumarkuna waa Japan waa maartay waa Japanka idan waa Tokyo marka uma jeedo maartay Tokyo waa nooca model waa inaan gaadhno sidaan salaada halka ka waa inaan gaadhno example baa la sameeyay annaka ma huwa mashruucuna mashruuca in Umar Geele waa maxay mashruuca in Umar Geele waa inuu kursiga fadhiyo dadka xukumoon ilaa goorma ilaa uu dhimanayo waa inuu meesha fadhiyo mashruuca maartay ma maqal mashruuca anigu كمان مقال مشروع عيسى فرماجو ما هو مشروع فرماجو مشروع عيسى محوية كدوية كفوقية كدار محوية مشروع مصبيحي محوية مشروع الدكتور أبي أحمد مشروع محوية أفورق مشروع عيسى محوية مشروع السيسي محوية هاي انت بدل waa kursi weeyaan mar oo dhig oo dhaaf mashaariic weeyaan ka baxno arinta saddexaad waata waa la isdhaama mararka qaarkood waxbaan ka sheegi doonaa arinta afraad waxa weeye ikhwaani fillah waa inuu jiro matbakh siyaasadeed ninka siyaasiga weyn ee hogaamiyuhu waa inuu yeesho matbakh ka dambeeya gadaal fadhiya matbakhan siyaasadeed waa inay fadhiyaan aqligii dalka iyo dadku ay lahaayeen waa inay fadhiyaan oo ay ku kariyaan dariyaha waxa ummadda la liqsiinayo iyo waxa ummadda laga iibinayo iyo waxa caalamka laga iibinayo iyo halka la gaarayo waxa dhada madbakh dhada waxa jira waxa dhado fannu dabq lilculum siyasiya sidee loo kariyaa arrimaha siyaasadda si loo kariyaa waa fan waa la iskama hadlo marka halkee lagu kariyaa ma hadda laguma kariyo dadka hortooda laguma kariyo dadka ku maqlaya waxa lagu kariyaa waraa alkawalis meel dambe madbakhyaa jira marka waxa la weydiiyay madaxweynaha Turkiga waxa lagu yiri wax ma akhridaa baa lagu yiri waan akhriyaa buu waxa la goorma haleeshay inaad wax akhridin madaxweynaha Turkiga intaas oo problem ku socdaan goorma haleelaa inuu akhriyo wuxuu yiri adduunka waxa kitaab ka soo baxa adduunka waxa buug ka soo baxa rag baa jira ka shaqeeya soo kooba 5 iyo 6 waraaqadood marka waa la ii keenaa wixii buuga ku jiray subag baan cabaa okay adduunka buu kama soo baxo adduunka buug ahamiyad leh oo khibrad iyo sadaka leh ilaa waa la ii keenaa miiskayga la soo saaraa buu subax walba dad buu meel fadhiisiyay oo waxa ka shaqeeya mishaar ku qaata waa fannu dabkh arinta kale wuxuu yiri bishii waxaan leenahay maalin aan wax kale qaban
oon salaada duhur markaan tukano aan fadhiisano ilaa iyo cishaa'iga dabadii. maxaad samaysiin? nin baa loo yeedhaa khabiira amba 2-3 nin waxay ka waramaan dunidu maanta halkay u socotaa cilmiyan, annaguna waan dhegaysanaa buuri, markaa baan qornaa buuri, markaa baan ka doodnaa buuri. caqliga turkiga, caqliga adduunka islaamka, caqliga xitaa dhanka kale ayuu u yeedhaa, uu la haasaawaa bishii maalin. caqligaabaa hogaaminaya wadanka. marka waxaa loo baahan yahay madbakhi aawey. ismaaciil madbakh male. ismaaciil wuxuu leeyahay majlis jaadka lagu cuno waa muqayid, jaadku aad u cunaa. waxaa garab fadhiya waa dad aan aqaano, waa xaashin, waxaa garab fadhiya iga qosli ilaa naxariis cabdi macalin, halkan dad waxaa meesha fadhiya bas maaragtay waxay u sheegayaan ay iska yar tahay. qof dhaqaaliistiya oo khabiir ah, nin siyaasadda khabiir ku ah, afkaarta diiniga nin khabiir ku ah, afkaarta dhaqaalaha nin khabiir ku ah, afkaarta bulshada nin khabiir ku ah, afkaarta dhaqanka nin khabiir ku ah, hablo khabiiro ah. inta meel la fadhiisiyey lama oran wax kale ka shaqayna, waxaan ka shaqeeya xataa mucaaradka qaarkood ma leh. marka waxaan uga jeednaa waxa weeyaan qofku waa inuu yeesho badbakh siyaasadeed. arrintaasi waa muhiim. siyaasigan rabnaayi waa noocaas weeyaan ikhwaani fillah. arrinta kaleeta, arrinta arrinta shanaad baan ujeedaa, ninka siyaasigii waa inuu haysto force, waa inuu haysto quwad. quwad waa maxay? quwad waa labo, waata loo yaqaana air power iyo soft power. waa maxay tahay? quwadda adag iyo quwadda naacimka ah ee fudud ee jilicsan ee maaragtay softiga ah. labadaa quwadoodii waa inuu haysto. midda koobaad ee ah powerka softiga ah waana ta muhiimka ninka siyaasiga inuu yeesho. waxa ay leedahay dadka inuu qofku qancin yaqaano. matala waxa ugu horreya waxa weeyaan inaad taqaanid sida loo hadlo. labo, inaad leedahay aragtidaadu inay fiican tahay, marka dadku soo joogsadaan inay kuu qancayaan. saddex, inaad taqaanid anwaacda loo hadlo marka lala hadlayo siyaasiyiin, marka lala hadlayo diblomaasiyadda waxa loo yaqaan. afar, inaad taqaanid sida loola dhaqmo aarka iclaamka, fanka loola dhaqmo iclaamka. shan, inaad taqaanid shacbigaaga sidee loola hadlaa. fanul iqnaac baa lagu soo gabagabeeyey. waa inaad taqaanid aarka dadka loo qanciyo. hadafkeygu waa maxay? kasbu lquluub wey. waa inaad quluubta kasbatid iyo caqliyada, sidii nebigu sameeyey. fabimaa raxmatin min allahi linta lahum. dadka wuxuu ku hantay raxmad ilaahay, uu qanciyay dadka, uu joojisiday. markaa ninka hogaamiyihii waa nin xooggaale, waa xoog, waxaas waa power, waa xoog bastatan min alcilmi waljism. waa inuu ilaahay ku siiyo ballaadh jireed iyo ballaadh aqooneed. waa inay aqoontaadu ballaadh jireed kama dhigan inaad xoog weynta oo buuran tahay maaha oo quraatay. waxaa loo baahan yahay inaad jirkaagu caafimaad qabo, inaad tahay qof isboor ciyaara, inaad tahay qof maaragtay jirkiisa ka shaqeeya, inaad tahay qof maaragtay. waan ku farxay markaan arkay ra-iisul wasaare oo sport ciyaaraya, xasan khayre, oo maaragtay dhalinyaradii la ciyaaraya, oo kubaddii oo la ordaya, oo wixii samaynaya. waa inaad calaqal ninka waa inuu yahay qof dhaqdhaqaaqa oo movement leh, oo lugeeya, oo socda, oo caraaba, oo orda, oo wax sameeya. arrinta kaleeto maskaxdaadu inay caafimaad qabto, oo maaragtay qof jaad cunaya ma caafimaad qabo. ani agteeda sawir ma caafimaad qabo. nin barjeenaya markasi ma caafimaad qabo. okay, waa inay qalbigaagu caafimaad qabo si dadka u qancin kartid. dadku markaa waa basta fi ljism walcilm, aqoonna waa inaad leedahay si dadka loo qanciyaa. arrinta kale waa inaad haysatid nooc min alquwa salba. salbiga quwadeedu waa maxay? waa inaad ciidanka qancisid, waa inaad booliiska qancisid, waa inaad xoololeyda qancisid. maaha inaad ka adkaatid, maaha ay adig ku soo raacaan si ay wadanka u badbaadiyaan. arrintaasi waa muhiim. waxa ugu kaleeto oo muhiima inaad baratid qofka siyaasiga hogaamiyaha fannu taswiiq alafkaar, aarka marketing loogu sameeyo iidayada afkaarta. sideed bini aadan afkaartaada uga iibin kartaa? waa aar. kayfa yumkinu laka an tusawiqa afkaarak? qofku hadduu afkaartiisa isagu iska iibiyo ma aha hogaamiye. hadduu ka iibiyo koox yaroo isaga la fadhidana ma ahin hogaamiye. hadduu ka iibiyo koox yaroo ka baladho qabiilkiisa una reerkaaguna hadday sacab kuu tumayaan ma aha hogaamiye. hadduu maanta gobolka oo ku dhashay un hadday sacab kuu tumayaan ma aha wadan kala duwan sida Djibouti oo kale, canfar iyo Soomaaliya, hadday canfartu ku daba socoto hogaamiye ma tihid. hadday Soomaali ku daba socoto hogaamiye ma tihid. haddaa maaragtay carab hogaamiye ma tihid. laabud waa inaad dadkii oo dhan haysatid. Soomaaliya oo kale haddaad joogtid ma aha hogaamiye ninka gobol laga jecel yahay gobolada kale laga jecel. ninka gobol laga jecel yahay gobolada kale laga jecel hogaamiye maaha. ninka reerkiisu ay jecel yihiin hogaamiye maaha. dad baa saa haysta war meeshan reerkaa dhagax uma ka talin kariya qurac. waxaas waa khuraafaat ikhwaani fillah. dal weyn weyaan wuxuu ka wen yahay. Ethiopia haddii aad tiraahdo oromadu annakaas cajabinay maaha. waxaasi hogaamiye maaha. ninka oromo u qanciya amba ninka Tigray u qanciya amba ninka Amxaar u qanciya
لا laysa alamru kadalik waa inaad dadka inta ugu badan aad qancin kartid marka waxaa la bartaa afkaartaadu maadaama aad leedahay afkaar centralist ood leedahay afkaar dadka dhaqaajinaysa ood leedahay projective ood leedahay madbakh ood leedahay quwad waa inaad dadka baratid sidee baa fikirka loo taswiiqiya ma aha inaad fikir lagu taswiiqiyo inaad dadka maaragtay la caayo maaha bani aadam dhacayso ma aha inaad ka sheekaysid wax beena ma aha ma aha inaad dadka aad maaragtay waxyaalo khuraafaada u keentid oo oon jirin sida maaragtay sunduuqa la dhahdo fond souverain ma aha waxaasi ma aha inaad dadka waxa haysta maaha inaad wax kale ka shaqaysid ma aha hoosta wax laga soo bilaabaa kayfa tusawiq afkaaraka fikirkaaga sideed bini aadamka aada ugu ballaarin kartaa sideed ummadda u gaadhsiin kartaa taasina waa muhiim marka waxaan soconnaa waa 6 baa soconnaa arrinta 7 waxa weeyaan waa inaad garatid ninka siyaasigii inuu yeesho culture ninka hogaamiyihii waa inuu saqaafo leeyahay markaan saqaafo leeyahay markaan aqoon weeyaan macrifa anu waxaan la yaabay ninka siyaasiga 20 sano dal xukuma ee maalintii ugu horeysay siduu u hadlayo maantana u hadlayo lam yataghayyar aan isbedelin wuxuu la mid yahay ninka sheekha ah ee 20 sano ka hadlayoon wax quraatay wuxuu la mid yahay ninka daaciga ah ee 20 sano aan dhaqaaqina halkii uu jooga wuxuu la mid yahay ninka hogaamiyaha saasoo kale tii qofka fanaanka si mid aan u heesa qofku waa inuu tatawuro weeyaan evolution waa inay ku dhacdo laabud imika haddaad eegtid 20 sano ka hor Erdogan iyo maanta isku fikir maaha dad baa dhahda wuxuu ku bilaabay min tasfiir mushkilaat mushkilaadka dibadda oo dhan waa zero buu ku bilaabay problem dowladoo dhan saaxiib baan nahay isbedel baa ka dhacay adduunkii carabta marka saaxiibnimadu way baawaysaa wuxuu sameeyay marka wuxuu sameeyay inuu dad ku dhex yeesho meeshaas dadna ka yeesho dad ku dhex yeelo dadna ka yeelo okay meel kasti oo adduunka islaamka Erdogan isaga ugu shacbiyad badan marka maxaa keenay taas wuxuu ku guuleystay culture-kiisa iyo balaadhiisa saqaafadiisa mahatir waa sidaa su'aal baa la weydiiyay mahatir hal taqra wax ma akhridaa wuxuu kayfa aktub illa ma aqra waxban qoraabe haddaan wax akhrin si wax u qori lahaa marka waa question cajiiba wuxuu ka jawaabay marka ninka siyaasiga wax dhada waa inuu 5 arrimood aad u yaqaano taariikhda Munsif al-Marzuqi barzaankii hore ee madaxweynihii hore ee dalka maxaa loo oran jiray Tunis wuxuu yiri qofka siyaasigan taariikhda akhrin siyaasi maaha ko taariikhda waa inuu qofku barto taariikhda aan sheekayna maaha taariikhda geedaha aan hoos fadhinay sheekadeena maaha taariikhda bashariyadda oo dhan waa wax quraatay waa inaan baranno bashariyaddu halkay ka soo bilowday taariikhda halkay maanta socotaa ma aha halkay aan ka soo bilowno waa juz min at-taariikh qas waa juz min at-taariikh waa qayb yar hoose bini aadanka waa inaad baratid okay arinta labaad oo maxay cilmiga istaraatiijiyadda waxa loo yaqaan geopolitique geoeconomique iyo geomilitaire waxaas oo dhan cilmiga istaraatiijiyadda waa inaad baratid ninka siyaasiga hogaamiyihii arinta saddexaad waa maxay waa inaad baratid cilmu alkhitaaba sida loo hadlaa sidii ilaahay uu nabi ayuub nabi aadaa'u keeni calayhi salaam waxaan siinay wa fasl alkhitaab markuu hadlayo hadalka uu kala goynayo arinta afraad ee looga baahan yahay ninka siyaasiga cilmiga iyo saqaafada looga baahan waa inuu dhaqaano diinta iyo culture-ka iyo saqaafada ummadiisa iyo falsafada dhulkiisa taala waa inuu yaqaano arinta ugu dambaysa shanaad waa maxay waa inuu yaqaano sidee baa dad loo hogaamiyaa cilmu idaara cilmu alqiyaada waa inuu yaqaano shanta waa inuu si gaara u yaqaano ninka siyaasiga waa inuu saqaafo camiiqa ku leeyahay waa inuu ka akhriyo buugaantii ugu dambeeyay ka soo baxay ma ogtihiin maalin wal on furo internetka oo weydiiyo kitaab جديد في علم السياسة أما في علم الإدارة أما في علم القيادة إسلامي ليبرالي وحضوني هالنقضة وحا يقصها الشمة وحا كيرين طبعا كتاب وصبح إلهي كان مركا وإنه مسكح هذا أي فرنتي بلارتي يعني هداد عريرين النقطيتك والعريرين هداد بلارتين ذاك بلارتين مركا تاثيره مهم أرنتك لو واحد إنك السياسي هجاميه مبقى ومغامر مقامر معها أفكار عربي وغين يقاف جاسم سلطان باشا مركا قال كتاس مقامر waxay ka tahay muqaamir oo bilghayn ah waxay ka tahay waa nin ciyaaraya waa nin jiiraya sida ninka baac musharka ma aha ninka siyaasiga ee ummad hogaaminaya inay dhahda wallahi subhan maxaa sameeya fulan maaha uu jiiraa ninka baac musharka waxa 10 milyan 20 milyan dollar buu gelini meel uu ka qulsani marka dambe amba waxay kaani 50 milyaar
amba waxay keeni 0 milyan ugu talagalay siyaasigu waa sidaa waad la waayi laakiin ha cabsooni dad baa kule war bax Djibouti baa wax laga qaban karaa war waxanaad ka war waa 20 sana maxay ka tahay xamal sana war waxa soo daalay diini waxa soo daalay Musa Axmed waxa soo daalay maxaa Ceelaabi waxa soo daalay Moon Bahdoon waxa soo daalay maartay Adar Walaale waxa soo daalay Gabayo waxa soo daalay Sheekho waxa soo daalay Maxay waxa soo daalay Maxay oo ilaa daaf balatana oo maartay gadhacan basana oo kani kala sidana ma iminka wax la qaban kar war iska daayo dadkani ilaahowgay leeyihiin waxa siyaasad waxaas waa sheeka caruureed ninka siyaasigi yuqaamiru wala yuqaamiru af carabi hada si ugu soo fahmay yuqaamiru waxa weeyaan uu jeeri laakiin ma ciyaar ya turub siyaasigu turub ma ciyaaro ma idhaahdo wallahi tuurada turubkana waad heli kartaa maaha laakiin uu muqaamar u jeeraya isagoo xisaabtiisii la sameeyay taktiigiisii la dhigay ayuu shameynaya marka ninka siyaasiga haddaad aratid dhaqaaqayn statikoga siyaasi maaha haddaad aratid nin siyaasi oo leh wallahi wali layma fasixin oo yaa ku fasaxaya cunta ku hortaalo cun lagu leeyahay waxa wali ma cuni karayo ummadaadii baa ku sugaysa oo kale badbaadi ummadaadii baa dhimanaysa iyaad ka sugi qaar wadaada bari waxay oran jireen siyaasadda waa loo bislaadaa wadaada waxyaalada aan aqligo inaan ka meedhaa war siyaasadda looma bislaado nolosha dhan baa loo bislaadaa laakiin si aad u bislaatid waa inaad nolosha gashid ninka aqal fadhiya ee wax uu ka shaqeynaya ma bislaado waxaa bislaada ninka nolosha ku jira ee dadka barta dadka barani waxaad barani ka tuuga ah waxaad barani ka khaa'inka ah waxaad barani ka ciyaal suuqa ah waxaad barani ka shidaariga ah waxaad barani ka maaragtay koo qaslaya halka dambana midi kaa gelinaya waxaad كلهم واحد كبرنا شقتها لكن هذا كبردون ويقول السلام عليكم شيخي جزاك الله قوت في عنتها والله اولياتها دينته الى وهو البانها يسوى واحد كلا لكن مركا اد نولش ودا غشين قف والبا وحو يهدرني مركا بعد هدو هوغامين يكو ساسا هذا هو السياسي مركا مغامره ارنت كلا waxa weeyaan ninka siyaasiga xusnuniyo kuma shaqeeya wallahi Ismaaciil Umar wiska fiican yahay khadra xid ba waalaysa shaqada waa ku qoslaaw amba wallahi xaajiyadu way fiican tahay waxa waalan dadka kale ku meersan baa waalan waxa wax dhahay xusnu niyya iyo dadka waaniye madaxda xusnu niyya madaxdu waana ma aqbasho madaxdu adaa ka taa ilaahay ka kuma dhageysanaya madaxdu xusnu niyya male siyaasadu baraa male siyaasadu akhlaaqda cayn kana male sadaajo male siyaasadu waxay leedahay wax la yiraahdo inaad hadacdid oo ka tiraadid khaa'in baa tahay tuug baa tahay ummadda xeeluhuga dhig markay wadaadadu ay sameeyeen ninka madaxweynaha amba ninka maartay hoos baa loo waaniyaa waa been dadka dhadhiceen waxay been ugu sheegeen de wax hoos isagu ma hayo ee haduu qof sinaysto nin astaqayno saaxiibka haduu sinaysto oo waanaysid waxaad ka leedahay sheekh xali waxaan ku arkay meel xul iska daa laana hoos buu sinaysanaya laakiin nin xoolihi umada xadayo cadaan ku xadaya nin dadkii cadaan been ugu sheegaya huwa yaf'al kull shay fi al-alan haqyadu ku tagi xaafada boolis baa ka sokeeye Ismaaciil Umar geel waxa ilaaliya gaarda goor baa ilaaliya gaarda gooradu waxay gaarsan yihiin kuna qof halkeed ka gaari hadda malaga qabsatida oo u tagtida hayo bukaaran laakiin xaqa umada waxa loogu sheegaa si cad sidoo si cad u xaday ba si cad loogu sheegaa sidoo si cad u dilay ba si cad loogu sheegaa sidoo si cad u xidhan ba si cad loogu sheegaa qofka dambiga hoos u galana hoos baa loogu sheegaa cilmiga way ka qariyay wadaadada muslimiinta waxay u sheegaan hoos baa loogu sheegaa oo ma wuxuu sameeyay buu sameeyay marka taasi siyaasadu xusniyo male niyad fiican iyo hebel fiican yahay hebel ma siyaasadu waa ficilka leega mantiqa ficilka shaqada ma wuxuu sameeyay waxa uu sameeyay taaba laga hortagaa ugu dambeyntii waxa weeye siyaasadu ninka siyaasiga hogaamiye wadciga adag ee compliquega kama cabsado la yakhaf wa inma yuwajih oo gala bal yuhib inuu galo siyaasiga hadarti qof ka cabsoonay wadcigu inuu والله وضعه كومبليكي وخواش حتى الله وعبسي عماها كينتو اك نينك جيسي سوكيتا مدح سocdo waraabihi libaahi shabeeladii soo madax socdo warankiisa gaashawaysto ninka saasi wasada wadciga adag buu dhex socdaa kan buu jawaabi kan iska celini kan buu ku qosli kan buuna laba hadlayn baba waaqada dabahaya kan dhagaxa ku turtuurayo yar eegi dhagaxa iska daalin buu koranay yaani uu soconaya isagoo siyaasi wasaas ugu dambeynta waxa weeyaan ninka siyaasiga wuxuu ku dadaalaa in uu eego waxa loo yaqaano inuu kala saaro goortee iyo meeshee siyaasiga hogaamiyaha sida goortee iyo meeshee meel baa jirta waqti baa jirta haddaad ka dambaysid way ku dhamaatay laxdada imika reer Djibouti u imato kale waa laxdad waliga amba fuada soo siidaayo amba ha xidho amba mid kale ha xidho amba qof kale ha dilo hatta in dad culimo la laayaa suurtagala bilahan dhexdiisa waa suurtagal la socda sheekh Usmaan kana soo noqotay culimo in la laayo waa suurtagal
inaad dad siyaasiyiina la layo waa suurtagal. reer Jabuuti oo sheegaya inaa maaragtay dad dibadda lagu dilo lagu sameeyo waa suurtagal. waxaas oo dhan waa suurtagal weya. laakiin kullu daalika waxay ku tusaysaa waqtigii inaan imanay, waqtigii laxdadii taariikhdu waa maxay marxaladuu gartaa ninka siyaasiga maanta meeshee iyo goortee waa muhiim jiddan. ugu dambeyntii walaalayaal, siyaasaddu waxay leedahay ninka siyaasiga ee hogaamiyihii wuxuu yaqaanaa inuu isticmaalo adawaadka siyaasadda, alaabta siyaasadda, maateerada siyaasadda, inuu isticmaalo mid walbaba meesheeda iyo waqtigeega iyo dadkeega inuu isticmaalo ayuu yaqaanaa. marka waxaan uga jeedaa waxaasoo dhan waxayaan war siyaasiga maanta ay u baahan tahay geeska Afrika waxa weeye waa badbaadiye ee ma aha hogaamiye oo quraatay, waa hogaamiye badbaadiye ah. lianna shucuubteenu waxay ku jirtaa etaabkan marxalad adag bay ku jirtaa, marxalad meel ay u socoto. weliba waxaa kusoo biiray corona 230 trilyan oo dollar baa dunida deyn lagu leeyahay. dadka waa laga qaranaya afrikaanka 230 trilyan oo dollar, trilyan baan sheegay maaha milyaar. 230 trilyan الدين العام العالمي, deynka internationalku waa sidaas weeyaan. Djibouti marka imika cabaaday baanka adduunku wuxuu soo tuuray 25 milyan oo dollar. qayladii Ilyas iyo qayladii Cabdilkariim iyo qayladii Inu Cumar waxay keentay 25 milyan oo dollar bay keentay. 25 milyan oo dollar waa luqluqasho weyn, waxa maaha problemka yaala Djibouti. 300 oo milyan oo dollar amba euro baa laga qaadaa ciidamada jooga, halkeen martaa 25 milyan baa loo soo tuuray. waad qaylidan hooyo intan baa laga yidhi. in yaroo kaleetana waa nii sheegi doonaa soo socota. waxaas oo lacagii 2 bilood 3 bilood mishaara maaha waxba. waxay ku dadaalayaan si ay u xaliyaan mashaakil yaryar oo maala yani waxay ku leeyihin waxaan bixinaynaa hadduu ilaahdo ciidda mishaarka waan bixinaa. waxay ka dhigteen hadaf weyn ciid dadka ciisiyaan bas way cabsanayaan war ciidda wixii noloshii ummadda aaway. markaas waxaan uga jeedaa waxa weeye siyaasigu waayo waa ka reer Djibouti, siyaasigu waayo waa ka reer Soomaaliya, Somaliland, Ethiopia. siyaasigu waa ka weeyaan ninka siyaasiga wax weeyaan waa hogaamiye karti u leh inuu waxaasoo dhan samayn karo. جزاكم الله خير. أدبنا ما ستين وسوسو نقدونا إن شاء الله موضوعية آدو في عن كوا تبرع يا كوا وحبرشة يا كوا وحي عن كشيء جرني إتبادن وإنت بقى نوجده إن يلنا ما سياسة ده إن يلنا وعي سياسة ده مركان تا يلنا يعني وحتر سياسة ده يلنا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.